waxaa si habsami leh u socda burburinta iyo dhismaha laamiga halbowlaha ee gudaha magaalada Burtinle oo lagu dhisay iskaashiga maamulka shacabka iyo guddiga horumarinta degmada Burtinle. tan iyo 1974 markii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya dhistay laamigan ma uusan helin wax daryeel ah, waxaana uu burburkiisu sababay dhibaatooyin isugu jira dib u dhac ganacsi iyo khasaarooyin naf iyo maal ah. haddaba si looga baxo xaaladahaas waxay maamulka iyo shacabka degmada Burtinle wada tashi iyo iskaashi dhaqaale kadib bilaabeen dhismaha laamigan iyagoona ku tashanaya jeebkooda dowladooda iyo dhammaan muxsiniinta Soomaaliyeed. qaar ka mid ah carruurta aadka u da'da yar ee dhigata xadaanooyinka degmada Burtinle ayaa warbaahinta dowladda Puntland u sheegay inay guddiga horumarinta degmada Burtinle ku wareejinayaan lacag ay gacanta ku wadaan oo uga qayb qaadanayaan dhismaha jidkan laamiga ah. lacagahan waa kuwii xilliga breega iskuulka ay ku gadan lahaayeen jalaatada nacnaca iyo xanjada ayna rabaan inay ku wada darsadaan jidka si ay u dhistaan una rumeeyaan rajadooda. jalaatada waatiina lacagta u soo qaatay waxaa rabaa inaan ku wareejiyo guddiga laamiga dhisaya inaan ku wareejiyo. waxaan rabnaa inaan laamiga dhisno, waxaan rabnaa lacagta jalaatada inaan laamiga ku darsano. shukulaato iyo jalaato ma rabno, jid baan rabnaa. gudoomiyaha degmada Burtinle Maxamed Maxamuud Axmed Buurdibi ayaa ka warbixiyay sida ay shaqadu u socoto, isagoona shacabka iyo qurbajoogta Soomaaliyeed ugu baaqay inay wax ku darsadaan sadaqadan jaariyada ee dhismaha laamiga. oo dhismaha laamiga dhexmara degmada Burtinle uu bilowday sida u jeedaan shaqadii waxay u socotaa si habsami leh. insha Allah waxaan rajaynaynaa dhawaan inaynu burburinta aynu ku xijino dhigista laamiga. maanta laamigani waa laamigii Socda koonfur iyo waqooyi iyo bari, waa laamigii halbowlaha u ahaa degmada Burtinle, waa laamigii ka faa'iideysanayeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaadiidka ay wadato mari jiray. waxaan rabnaa inaynu ka faa'iideysano dhismaha laamigan qaabka aynu isku qashano oo ah iskaashi guud ahaan shacab iyo maamul intaba. waxaa qayb ka ah maamulka degmada Burtinle iyo guddiga horumarinta degmada iyo guud ahaan shacabka reer Burtinle, reer Puntland iyo reer Soomaaliya intaba. laamigani 1972 dowladdii kacaanka ahayd ka bacdi cid dambe oo wax ka qabatay ma jirin. si wanaag 2019 bishan saddexaad waxaa u istaagay guud ahaan ummadda reer Burtinle, shacab iyo maamulba inay dhisaan laamigan. waxaanu qaab aynu iskaashiga baanu ugu talagalnay in lagu dhiso. qayb ka mid ah waxaa dhisaya GBLG barnaamijka aan ka helnay. inta kale tan waxaan u soo bandhignay bulshada inay ka qayb qaataan inagoo garab taagan. waxaan rajaynaynaa inay noogu soo dhammaan doonto guul. waxaan rabaa inaan fariin halkaan uga diro qurbajoogta u dhalatay deegaankan oo runtii aanu kaalin fiican ka rajaynayna inay ka qayb qaataan, horena looga bartay inay ka qayb qaataan dhismaha dalka, in ay dib ugu soo celiyaan dhaqaalaha ay ka heleen halka ay joogaan. qof walba ka qayb qaado jidka dhexmara halbowlaha degmada Burtinle. waxaan rajaynaynaa in arrintaasi ay ku dhammaan doonto si guula, maxaa yeelay waxay aakhiradeena iyo adduunkeenaba sharaf ay noo tahay. sida diintu ay sheegtay laamigu ama dariiqyadu waxaa la hubaa in ajar iyo xasanaad laga helo. waa sadaqa jaariya. qof walba la bax shilinkaaga si aad birri adduunkaaga iyo aakhiradaada uu ku anfaco. midda kaleeto wuxuu ka qayb qaadanayaa socodka gaadiidka magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garoowe iyo guud ahaan degmada Burtinle intaba. waxaan aad u rajaynayaa oo ugu faraxsanaa ugu hanweynahay sidii la rabay in ay wax walba ku dhammaan doonaan. geesta kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Burtinle ee midnimo iyo saaxiibkiisa Cabdulqaadir waxa ay sheegeen inay maqleen in laamigan ay dhistay Jayna ayna ku caqlisadeen isagoo burbursan maantana ay doonayaan inay iyagu dhistaan isla markaasina lagu soo taageero. maanta aad ugu faraxsanahay in la bilaabay dhismihii wadadii halbowlaha ee degmada Burtinle. waxaan rabaa inaan insha Allah bulshada reer Burtinle ku bogaadiyo in muwaadiniinta reer Puntland kuwa reer Burtinle in laga qayb qaato wadada dhismaha ee halbowlaha. runtii waxaanu soo gaarnay oo ku aqliyaysanay wadadaas oo burbursan. runtii waxa weeye inaan maanta aragno wadadeena noo dhisan oo laami noo saaran yahay oo qurux badan. waxay ku xiran tahay inaan muwaadiniin oo ka qayb qaadano. waa danteena, waa danta dalkeena,
waxay ku jirtaa waxa weeye qof walba sumcadiisa iyo waxa weeye jidkuu mari lahaa inuu helaa ku jirta waxaan marka ku boorinaynaa dhammaan degmooyinka reer Burtinle iyo dhammaan dadweynaha Puntlandba in wadada halbowlaha degmada Burtinle laga qayb qaato waa wado isku xirta dhammaan waxa weeye gobolada Soomaaliya waa wado halbowlaha ah waxay anfacaysaa dhammaan waxa weeye dalkeena waxay anfacaysaa waxa weeye muwaadiniin walba Soomaaliya waxaan insha Allah ku bogaadinaa si muwaadinimo leh walaaltinimo leh dal jacayl leh in looga qayb qaato kii aan waxa weeye aan kharash uga qayb qaato heli karina waxaan ku bogaadinaa in looga qayb qaato waxa weeye xoogiisa waxaan ku rajeynaa oo ku bogaadinaa in looga qayb qaato qalbi fiican iyo wanaag in looga qayb qaato ku boorinaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii u istaagtay ugu horeeya maamulka degmada guddiga wadada dhisay oo ka qayb qaadanaya iyo shirkadda Kibaako oo barnaamijkan waxa weeye dhisaysa waxaan wax ka weyn baan sugayaa dhisno tan waa guul bilowgeed waxaan rajaynayaa in laga soo qayb qaato qof walba waxa awoodi karo ku dirsan laamiga sharaf bay inoo tahay inaan dhisno laamiga sidoo kale waxa sharaf inoo ah reer Burtinle isku tashadaan waxna ay qabsan karaan waxaan doonayaa maanta inaan gacanteeda ku dhisno fadlan ugu taageer oo ii rumeey riyada guuleystay jaamac warbaahinta dawladda Puntland magaalada Burtinle